بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan aan nagala socotaan waa webka caalamiga ah ee waxsan sheeg news iyo magaalada Oslo caasimadda dalka Norway. Sida halkan ka aragtaan waxaa horteeda fadhiyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mawlid Maxamed Karraani oo ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Siina iyo wasiirada ugu miisaanka weyn oo culus. kusoo dhawow Mawlid Maxamed Karraani oo webka caalamiga ah ee waxsan sheeg news. المولد waxaan halkan ku weydiinayaa su'aalo kooban isaga oo safar ku gaala bixinayay wadamo kamid ah qaaradda Yurub gaar ahaan Scandinavia-ka isaga oo ka soo bilaabay safarkiisa magaalada dalka Sweden ee cariga Swedish-ka haddana ku sugan magaalada Oslo ee dalka Norway. ujeedada socdaalkaaga iyo safarkaaga Mawlid maxaad uga sheegi kartaa? bismillaahi raxmaani raxiim salaatu wasalaamu calaa sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. runtii safarkaygan wuxuu daarnaa laba qodob oo muhiim ah. mid wuxuu ahaa inaan soo booqdo xafiisyada wakiilada Somaliland ee qaar ka mid ah ee ku yaala wadamada Afrika iyo qaar kale oo iyaguna ku yaala wadamada Yurub khaasatan wadamada Scandinavia ayuu daarnaa. taas waa mid ahayd iyo jaaliyadaha oo ardayda iyo wakiilada kala bixin oo iyaguna xafiisyada jaaliyadaha bacdama ay hay'adda jaaliyadaha Somaliland ay joog ay hoos timaado iyadana jaaliyadaha iyo xiriirka ka dhaxeeya xafiisyada wakiilada iyagana soo arko markaas safarkaygaasi wuxuu kasoo bilaabmay markii hore magaalada Djibouti wadamada Addis Ababa Yurubna wadamada Scandinavia-ka maraya oo ay ka ahayd Sweden oo ka yimi waa Norway marka dambana aan kasii socon doono halkaas. qaybta labaad ee safarkayga waxaa idin ka qayb galo intaan ku jiro hawsheedan Scandinavia-ka shir lagu qabanayo magaalada Hague dalka Netherlands kaasoo ku saabsan bisha labadeeda June lagu qabanayo kaasoo ku saabsan arrimaha qurba joogga oo la yiraahdo diaspora in action ay wada qaban qaabiyeen waddanka Netherlands wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adda caalamiga ah ee IOM. wasiir Mawlid Maxamed Karraani aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. su-aasheeda labaad waxa ay tahay sidee baad u aragtaa had iyo goor qurba joogga ama shacabweynaha reer Somaliland dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxay u dhegtaagayaan ictiraaf. waxaan filayaa sida aynu wada ognahay golo deegaano fara badan oo u badan dalka UK ayaa ictiraaf siiyey jamhuuriyadda Somaliland. bal haddaba maxaad nooga sheegi kartaa ictiraafkii ma soo dhow yahay mise uu dheer yahay? bismillaahi raxmaani raxiim. su-aasha haddaan marka hore sideeda toos uga jawaabo waxaan leeyahay ictiraafkii waa markii ugu dhowaa. tallaabooyin badan oo ay xukuumaddu qaaday baa jirta meelo badan oo arkaysaan sida jaaliyadaha aad kaga dhawaasay iyo oo ay dadaal ay samaysay baa jira oo ay kala qayb qaadatay dowladda xukuumadda Somaliland in ictiraaf doono sida Ingiriiska oo kale meelo ku saabsan qaar kale oo la sugayo hadda iyo qaar kale oo aanan doonayn inaan tallaabooyinkan ictiraaf ka qaaday aanan rabnin inaan ka wada sheegno halkan marka xilligeeda insha Allah sheegi doono meeshii ugu wanaagsan buu maraya rajo badanna waan qabnaa. waxaan laakiin aad iyo aad uga codsanaynaa jaaliyadaha Somaliland ee dowladaha ee qurbaha ku nool dadaalkooda waan naqaan awoodooda waan ognahay waxay qaban karaan iyagoo isku duuban oo aan kala lahayn inay si xooga nogala qayb qaataan in aanu arrimaha intay noo dhiman iyo wadamada joogaan xoog nala saara. annagu xaggayga waan kormeerkayga baaba ka mid ah si aanu u dardargelin lahayn iyaguna inta dhiman insha Allah in nagu daraan waana ku kalsoonahay inay ku dari doonaan waana saas ayaan markaa ka rajaynayaa insha Allah. aad iyo aad baad mahadsantahay Mawlid Maxamed Karraani wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda. adigoo ka faa'iideysanaya kelmadii ugu dambeysay halkan maxaad kaga farxinaysaa bulshooyinka reer Somaliland halkan ka daawan doonta yaad se ka salaamaysaa? wallahi horta marka ugu horeysa waxaan halkan ka amaanayaa jaaliyadaha meelihii aan soo maray oo dhan ay ka tahay jaaliyadda Djibouti ee Somaliland Addis Ababa ku nool waddanka Ethiopia Sweden ku nool Stockholm caasimadeeda iyo runtii tan iminka aan joogo oo ah jaaliyadii ugu wanaagsaneyd runtii intii aan soo maray ayay ahayd. waan ku amaanayaa wada jirkeeda sida ay wada socoto sida ay u dareensan tahay wadaniyaddu waxay tahay sida ay xukuumad iyo xisbiyo ay u wada jiraan qarnimada Somaliland ay ka tahay
sida ay tallaabadaynu rabno inaynu gaadhno oo ah inay dadku fahmaan xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradku inaan isku ahayn sidii jira ay isku yihiin dowlad oo u ka kooban xukuumaddii iyo xisbiyadii xukuumadduna tahay ay tahay ta guud ee howlaha qaranka guud ee calanka Somaliland kuwa shaqeysa xisbiyaduna ay yihiin kuwii dastuurka lagu qornaa ee ay tahay saddex xisbi qaran inay yeelno wada shaqeynteeda runtii jaariyadan waa ka arkay waa jaariyad aad iyo aad u buuxisay fikradaha inta la gaadhay waa kuwa maayla waanu soo duceynayna waxaan leenahay jaariyadaha kalena meelaha kale ku nool inay saas oo kala dareemaan waana salaamayaa dhammaan jaariyadaha soo maray oo dhan ilaa imika khaas ahaan jaariyadda reer Oslo oo ah jaariyad qiimo badan kaas waxa uu ahaa مولد محمد كراني وزير كحجين كوسارة أرمها الدربة الجمهورية الصوماليلاند أو كسوغان مجالات أوسلو دلك النرويج وحنا ليه هاي مولد وسيراديا ضيضمها تنتهي وحوريس جاقادي يعني جوها بون صديق وفرح حنا ليه هاي لما بددوني هنا شرفت له هل كان نقد عندنا انتهينا الدروس كل الضنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبك هي عبد الرشيد علي حمرنا أضيعكم سلام يا الله السلام عليكم